bismillaahi raxmaani raxiim kulan wanaagsan daawade halkani waa channelka wararka ee Soomaali News ku soo dhawaada timinta maalin qodobada ugu waaweyn waxa qaybka dawladda Imaaraadka Carabtu aqbashay raaligelinaysiiso Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble oo wali dalkaasi ka wada kulamo safaaradda Mareykanka oo sharaxaad ka bixisa hal arin oo safiirkeedu cusub warqadaha aqoonsiga ugu gudbi doona madaxweyne Farmaajo wararkii ugu dambeeyay doorashooyinka socda magaalooyinka Garowe iyo Muqdisho ayaan warkeedin kugu soo gudbi doonaa iyo midowga Yurub oo sharuud ku xiray sii wadista taageerada ciidanka AMISOM ee jooga Soomaaliya qodobada iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahin doonaa wararka Soomaali News ee u diyaar garooba daawadayaal markale kulan wacan oo wanaagsan waa 2 Febraayo 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahintooda guda galno haddii aynu ku bilowno dawladda Imaaraadka Carabta ayaa aqbashay raaligelinaysiiso ra'iisul wasaare Roble waxaana halkaasi wali uu ka wada kulamo oo la qaadanaya madaxda ugu sareeya dalkaasi dawladda Imaaraadka Carabta ayaa aad u soo dhaweysay raaligelin uu ka bixiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble dhacdadii Abriil 2018 ka dhacday ee garoonka Aadan Cadde oo Imaaraadka lagala wareegay lacag gaaraysa 9.6 milyan oo dollar taas oo ka degaysa garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga Imaaraadka ayaa bogaadisay hindisaha mudan ra'iisul wasaare Roble ka turjumayo qodada dheer ee xiriirka taariikhiga ee ka dhaxeeya labada dal ee walaalaha ah waxayna ka mahad celisay doorka uu ra'iisul wasaare Roble ka qaatay iyadoona ku baaqday dawladdaasi inay taageeri doonto shacabka Soomaaliyeed iyo dawladoodaba wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee dalkaas ayaa sidoo kale qiimeyn siisay hindisaha uu la yimid ra'iisul wasaaraha iyo mahad celinta uu Imaaraadku jeediyay iyo dadaalka uu ku bixiyay Soomaaliya wasaaraddu waxay xaqiijisay in Imaaraadku sii xoojinayso xiriirka taariikhiga ah ee la leedahay shacabka Soomaaliyeed ee walaalaha ah isla markaana ay gacan ka geysanayso sidii loo heli lahaa nabad xasilooni iyo horumar guud oo dalkan walaalahana ee Soomaaliya ka dhacdo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta dawladda Imaaraadka 2018 iyo wixii ka dambeeyay waxa xumaaday xiriirka kala dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii lacag gaarayso 10 milyan ku dhow ay lagala wareegay taas oo dawladda Soomaaliya ay ku sheegtay midana gooni iyo arrimo siyaasadeed oo xasilooni darrida dalka looga abuuri rabay sidaa daraadeedna ay tilaabo ka qaaday 7 bishii January ayna soo dhaafnay ahayd markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble uu ka bixiyay raaligelin dhacdadaasi wuxuuna sheegay in dawladda Imaaraadka Carabta dib loogu celi doono lacagta taas oo ay ka dhalatay dhankeeda muran ay soo kala dhaxgalay madaxda dalka iyadoona safarkii dhawaan ra'iisul wasaare Roble dalka Imaaraadku uu ambabaxay kadib warqad la soo saaray lagu amray guddoonka bangiga dhexe iyo sidoo kale wasaaradda maaliyadda ee dawladda Soomaaliya inaan la bixin karin lacagtaasi madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigan xiriir waqtigaani khilaaf xooggan oo kala dhaxeeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Roble ayaana hore u sheegay in lacagta Imaaraadka aysan hal shakhsi bixin karin tahayna mid ka weyn go'aan oo hal qof gaaro dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo booqasho ku jooga dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa kulan la yeeshay dhaxal sugaha Abu Dhabi aana ku xigeenka taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed bin Sayid Al Nahyan kulanka ra'iisul wasaare Roble iyo Sheekh Sayid ayaa waxa diiradda lagu saaray horumarinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee walaalaha ah ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa kaga mahad celiyay Sheekh Maxamed bin Sayid iyo shacabka Imaaraadka Carabta soo dhaweynta isaga iyo wafdigiisa sidoo kalena doorka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya gaar ahaan gurmadka ay dhawaan soo gaarsiiyeen shacabka Soomaaliyeed ee abaaraha saameeyeen iyo kuwa kale dhawaan laga sugayay ayay kaga mahad celiyay ra'iisul wasaare Roble dhaxal sugaha Abu Dhabi Sheekh Maxamed bin Sayid ayaa dhankiisa ra'iisul wasaare Roble kaga mahad celiyay mowqifka xukuumadda Soomaaliya ay ku cambaaraysay weerarka argagixisada ah ee maleeshiyad ee Xuutiyiinta ay la beegsadeen goobo ku yaala Imaaraadka Carabta ra'iisul wasaare Roble ayaa dhaxal sugaha Abu Dhabi Sheekh Maxamed bin Sayid sidoo kale kaga hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya guud ahaanba gobolka iyo xiriirka labada dal kulankan ayaa sidoo kale waxa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda Imaaraadka Carabta waxaana ra'iisul wasaare Roble kala qayb galay wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Abuukar Xaaji wafdiga ra'iisul wasaare Roble oo maalmihii dambaba ku sugnaa magaalada Abu Dhabi ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaana halkaas kulamo kala duwan kula qaatay madaxda dalkaasi ugu sareyso
Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa cadeysay sabab uu safiirka cusub ee Muqdisho soo gaaray dhawaan oo nuqul ka mid ah warqadaha aqoonsiga ugu gudbi doona madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Safaaradda oo bilowda baahinta qoraal iyo sawirro ay dadka ku bareysay safiirka cusub iyo taariikhdiisa ayaa kaga hadashay dhawaan ee warqada ay baahisay. Shalay ayaa safiirka cusub ee dalka Mareykanka waxa nuqul ka mid ah warqadaha aqoonsiga ee safiirnimo u gudbiyay wasiirka arrimaha dibadda. Asalka warqadahan waxa loo gudbi doonaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu yiri qoraalka safaaradda ayaa sharaxaad ka bixisay arrintan qoraalkeeda uu ku soo gabangabeysay sida dhanka diblomaasiyaddu yahay warqadaha aqoonsiga waxay si rasmi ah danjiraha ugu gudbi doonaan wakiilka madaxweynaha Mareykanka ee u matala Soomaaliya ee ku hadlaya magaca dowladda Mareykanka taas oo ku socoto madaxweynaha Soomaaliya. Mareykanka ayaa hore doorashadii 2017 dib u dhigay in safiirka cusub ee warqadaha aqoonsiga la wadaago madaxweynaha xilligaasi waqtigiisu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud waxaana lagu sugayay madaxweynaha cusub balse xilligan waxa muuqato in doorashada gaabis uu ku socdo waqtiga oo dheeraaday sida awgeed ay sabab u tahay. Dowladda Mareykanka ayaa waxay mar kale ku baaqday in la soo dedejiyo waqtiga doorashooyinka dalka isla markaana laga dhabeeyo go'aankii hore u wada gaareen ee waqtiga lagu cayimay ee golaha wada tashiga qaranka midowga musharaxiinta ee Soomaaliya iyo sidoo kale saaxiibo ka socda beesha caalamka ururada bulshadana ay shirarkaasi ka qayb galeen. Inkastoo doorashooyinka dalka haatan si xawli ah ku socdaan haddana waxaa jiro musuqmaasuq ba'an oo hareeya doorashooyinka. Markaana magaalooyinka Muqdisho iyo sidoo kale magaalada Garowe caasimadda Puntland waxaa ka socda doorashada 12 kursi oo min 6 kursi lagu kala dooran doono magaalooyinkaasi. Doorashooyinka Muqdisho iyo Garowe oo gaaraya 12 kursi waxaa ku tartamaya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 12 ee dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo kuwa hore ugu fadhiya kuraasta qaar ay ku tartamayaan halka kuwa kalena ay cusubna ay ku soo bireen haatan xildhibaanada gobolada waqooyi iyo sidoo kale Puntland ka soo galaya hayana doorashooyinkooda ka kala dhacayaan ay ka socotaa magaalooyinka Garowe iyo Muqdisho. Doorashada Muqdisho kuraasta ay doorashadooda halka ka socotay waxay kala yihiin Hob 270 Hob 271 Hob 269 Hob 268 Hob 267 iyo Hob 236 sida uu sheegay guddiga doorashooyinka ee dadban ee gobolada waqooyi. Sidoo kale magaalada Garowe waxay doorashadooda ay ka socotaa kuraasta kala Hob 192 waxaana hore ugu fadhiyay Siciido Maxamed Xasan sidoo kale Hob 94 sidoo kale Hob 14 Hob 121 Hob 74 kuraastaas oo doorashadooda maanta ay ka kala socoto magaalooyinka Garowe iyo caasimadda Muqdisho ee Soomaaliya ayaana la soo gabangabeey doonaa iyadoona musharaxiin dhowr ay ku tartamayaan. Inta badan kuraasta doorashadooda ay ka kala socoto magaalooyinka Garowe iyo Muqdisho ayaa xiran waxaana ku soo bixi doona shakhsiyaad loo saadaalinayo. Inta ayaan ku soo gabagabeynaa daawadayaal barnaamij wareedka kala socoteen channelka wararka ee Somali News mid lamid ah qayaar inta kulmi doona nabadgelyo.